asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada channelkeenna Hogan 24 Media waa anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Dadka iyaga naftooda ka hela waxaa laga yaabaa inay yihiin dad shakhsiyan la dhacsan muhiimadda ay isu leeyihiin isuna arkaan inay yihiin caybka saliim, balse dhakhaatiirta cilmu nafsiga waxay sheegeen in laga yaabo inay dadka kale ka farxad badan yihiin. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. daraasad lagu sameynayo dadka leh dabeecadaha noocan oo kale ah oo ay wado jaamacadda Queen's taas oo wali socoto, waxaa lagu ogaaday in dadkaasi ay ka caraysiiyaan dadka kale oo haddana ay ka walwalayar yihiin dadka iyaga la nool. Costas Babagiorgio oo ah dhakhtar qaabilsan cilmu nafsiga ayaa sheegay in hadallada xanafta leh ee ay ku hadlaan lagu ogaan karo wanaagga dadka nafsadooda ka hela. cilmi baarayaasha ayaa in muddo ah isku dayayay inay ogaadaan sababta ay dadkan ugu muuqdaan kuwa ku soo badanaya bulshada casriga ah, siyaasadda, baraha bulshada iyo dadka caanka ka ah bulshada dhexdeeda. waxaana sidoo kale loo arkaa arrin dhib badan ku haysa bulshada dhexdeeda. haddaba dabeecadani ma ceebba mise waa xadgudub? waxay cilmi baarayaasha ku tilmaamaan in dadka qaba dabeecadaha noocaas ah waxay mararka qaar faraha la galaan dabeecado khatar ah, waxayna iska aaminsan yihiin fikir aan caadi ahayn, mana isu arkaan kuwa cayb dhex taagan ama garanayo waxa ay ku sugan yihiin. iyagoo aaminsan sidaas ayay haddana cilmi baarayaasha waxay doonayaan inay ogaadaan sababta dadka nafsadooda ka hela ee u yihiin kuwa muuqda, iskuna abaalmariya halkii ay yaxyaxi lahaayeen. dhakhaatiirta cilmu nafsiga waxay kaloo sheegeen in arrintan ay tahay dabeecadaha madow oo ay ka ogaadeen bini'aadamka. hase yeeshee cilmi baaris uu sameeyey Dr. Babagiorgio waxay ku talinaysaa in kastoo arrintan aysan u wanaagsaneyn bulshada, haddana ay u muuqato in ay faa'iido u tahay dadka leh dabeecadahaas. waxaa dhici karta in ay si khaldan ula dhaqmaan kuwa kale, dareen dhaawacana ku reebaan, balse dadka iyaga nafsadooda ka hela waxay u muuqdaan in mar waliba ay ka hortagaan in wax khaldan ay iyaga iska aaminaan. walwalka ay nolosha kala kulmaan wuu yar yahay, sidoo kalena way adag tahay in nolosha ay u arkaan mid dhib iyo walwal ku salaysan. kalsoonida ay ku qabaan nafsadooda waa mid ahmiyad gaar ah iyaga u leh oo ay isaga difaacaan waxyaabo badan. haddaba muxuu yahay mashquulka ay awoodda la socoto? tani waxay daba socotaa daraasad horey loo sameeyey oo muujinaysa in dadka nafsadooda ka hela ay u badan tahay in guulo ay ka gaaraan shaqada iyo la noolaanshaha bulshada, waana dad maskaxdooda ay tamaam tahay. taasina waxay ka caawisaa in aysan qalbi jabin. Dr. Babagiorgio waxaa kale uu eegay sida waaqica kala duwan ee dadka ay u keeni karto inay kala duwanaato xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo waxa ka dhalan kara. dadka naftooda jecel kuwooda ugu nugul waxaa laga yaabaa in ay ku jirto wax la yiraahdo iska dhici, sidoo kalena ay leeyihiin dabeecad ah in dadka kale ay u arkaan kuwa aan la noolaan karin oo dhibaato ku haya. marka laga eego dhanka qabka, sida ay iskula weyihiin iyo qaabka ay ula tacaalaan walwalka la soo darsan noloshooda, waxay dhakhaatiirtu sheegeen in ay u badan tahay in si wanaagsan ay u maareeyaan. dabcan dhab ma ahan in dhammaan dadka nafsadooda ka hela ee waaqicooda kala duwan yahay ay wanaagsan yihiin, balse qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in ay u horseedo natiijo wanaagsan, ayuu yidhi. dadka leh dabeecadahaas ma ahan in loo arko in ay xun yihiin ama ay wanaagsan yihiin, balse waa in loo arko in ay yihiin isbeddello bini'aadamka ama dadka ka turjumaya asalkooda, taas oo leh wanaagga iyo khatarta hadba ku xiran nuxurka. cilmi baaris kale oo arrintan laga sameeyey waxaa lagu sheegay in ay dhici karto in la helo qaab loogu diyaargaroobi karo dadka leh dabeecadaha noocan oo kale ah, sidoo kalena niyad jabin karta kuwa kale iyadoo laga eegayo wanaagga wadajirka. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar,
sabskraibna dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.